عليكم مقعي وقال علمي وحا هاي آسها iyo milkiilaha macnaay galaasig waxa sameeyaa xirfada gacanta oo loo yaqaan domestico ama farshaxanka noocyadiisa kala duwan aan sameeyaa ardayna wax waa baraa iskuulku wuxuu ku yaalaa kaxda waxa sameeyaa waxyaabo badan oo kala nooc ah sida dharka ciyaalka kitaabada jaldiga kitaabada la gashto sagsaamanka baloofisiyada funaanado waxyaabaha loo isticmaalo in fadhiga lagu qurxiyo sida maryaha fadhiga la saarto barkimankooda anytime wax walba oo buntu waa laga sameey karaa lisdhaho sameeyaa xirfadan waxa bartay 2009 bilaabay iskuulka macadka waxay keentay hay'ad sida cilaan saarka make upka cunto karinta farshaxanka gacanta iyo harqaamanka ani waxa hobigayga noqotay farshaxanka gacanta alxamdulillah muddo dheer kadib waxa ii suurta gashay 2016 inaan xoog saaro mar walba waxa isku day jiray inaan wax nashqadeeyo laakiin waxa ii suurta gashay inaan wax nashqadeeyo marka hadda soo dhamaado 2022 ii suurta gashay inaan wax sameeyo maadaama aan wax nashqadeeyay oo waxyaabo badan aan soo saaray waxa ku fikiray inaan soo saaro arday ani aan wax baray maadaama u baahan yihiin gabdhaheen Soomaaliyeed xirfadan aad loo wada jecel yahay magaalada ay ku yartahay iskuuladeeda waxa go'aansaday inaan sameeyo iskuul ani aan leeyahay aaso arday ani aan wax barayna aan soo saaro birini hadii Ilaahay nafta muusan in ayagana dad kale wax sii baraan marka ma sha Allah alxamdulillah arday wax baraa sabtida ilaa arbacada qamiisi jimco qeyba baraa online ka 10 ku bixiyaa alaabaha ani aan sameeyo waa laga soo dalbadaa sida maxaan lahayn baraha bulshada ciwaanada aan ku leeyahay macnaay galaasig oo ciwaan walba aan laga soo dalbadaa ilaa iyo gobolada ilaa iyo dalka dibadiisa laga soo dalbadaa dalabkana waqti kooban aan ku diyaariyaa waa gudbiyaa caqabada waxa igu ahayd marka hore inaan wax design gareeyaa rabaa ma ii suurta gali jirin sababtoo wax walba xisaab ka bilaabanayaan xisaab ku dhamaanayaan waxay leeyihiin meel oo isku xir la dhahayo wax iskugu imaanayaan leeyihiin markuu horeeyay caqabadeedu waxay ahayd inaan wixii meesha ka bilaabanayaan oo kale xisaab aan u sameeynin meesha ku dhamaanayaan oo kale aan isku xir lahayn oo wixii maanta aan iska dawareejinayo oo iska dawado mashaakilkay saas u ahayn laakiin hadda maadaama aan fahmay oo macluumaad aan noqdo dad kale wax sii baray ay gaaray wax caqabad kala ma kulmo ina waxa sameeynayo ku qanacsanahay oo anoo hadda ku aan sameeynayo maahane inta hadda wax qabto ama inta hool qabtana waxa uu jeclahay farshaxanka sina sameeyo gabdhaha Soomaaliyeed waxa ku dhiirigelinaya inay xirfadan bartaan qof walba oo maxaan lahaay haween oo anfacaya ina waxaan ku shaqeysatid kaliya looma barto waxa loo bartaa ina adigu ku intifaacdid ina awlaadaada bari aasi bari kartid ina maxaan lahaay waxa adiga jeceshay kala ay sameeysan kartid qof gabar walba Soomaaliyeed waxa ku dhiirigelinaya haday tahay hooyo iyo haday gabar yar ay tahay inay barato xirfadan bilina maxaan lahaay way ku anfici doontaa waxa loo maleeyaa inay adag yihiin marka la sameeyo laakiin wax adag ma ahan wax walba fahmku waay sidoo kale ragana way sameey karaan haday ugu tala galaan caalamka hadda raga sameeyo oo ku tartamo sida rooga funaanadaha waxyaabo badan ay sameeyaan marka ragga xataa u baahan yihiin waa la barayaa qof walba oo jecel xirfadaas inuu barto oo ku haminayo inuu bari mustaqbalka heer ka gaaro waxa diyaar u ah inuu ku caawiyo dhan kasta oo ka caawi karo hadii la dhaho farshaxankaas insha Allah